kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartayna la socotay ku soo dhawaada qaybtii afaraad basaaskii caqalka madaxweynaha qaybtii saddexaad waxay inoo joogtay ninkii cali cadfi ahaa oo ay farabateen socdaaladiisa iyo fiisooyinka beenta ah ee u saaran baasaboorkiisa oo isdhigtay kuna damaashaadayay hantidii uu ka helay dhakridda dadka reer Masar. dhanka kale sirdoonkii masaaridu waxa ay hubeen in uu jiro basaas qarsoon oo meel halis ah jooga balse ma aysan ogeyn kuu yahay. waa ayna hubeen in basaaskaasi uu warbixino ku saabsan caqalka madaxtooyada iyo nolosha madaxweynaha uu u gudbiyo dowladda Israa'iil. sirdoonkii masaaridu waxa ay u bixiyeen basaaskii aanan la aqoon galgaar ahna waa ay u sameeyeen. warbixinada ku qoran galkaasi waxa ay sheegayeen in qofkaasi uu yahay mid u dhow dadka sameeya ama go'aan ka gaara siyaasadda dalkaasi Masar. qaybteennii afaraadna waxa ay ku bilaabanaysaa sidan. waxaa galkii gacanta laga saaray oo loo dhiibay gaashaanle Maxamed Nasiim oo ku caanbaxay naanaysta wadna libaax. waxa uuna ka mid ahaa raggii ugu halisanaa ee soo maray sooyaalkii dalkaasi Masaarida. waxa uu si xoog iyo xawaare isugu jiraba u baaray arrinkii basaaskii daahsoonaa. gaashaanle Nasiim oo isaga baaritaankaasi madax ka ahaa in badan ayaa hurdabeel ku dhacay isaga oo ku howlan helidda basaaskaasi. dabagal dheer iyo turxaan bixin lagu sameeyay xogihii la soo helay waxaa lagu ogaaday in qofka la raadinaya cid kale aysan ahayn ee uu yahay cali cadfi oo jaar la ah madaxweynaha dalka Masar. markii la helay cadeymo aanan tuhun ku jirin oo la hubo ayaa waxaa loo bandhigay galkii madaxweyne Saadaad. isagoo aan u rumaysan si buuxda waxa loo sheegay ayuu weydiiyey madaxdii sirdoonka ma la hubaa in warkaasi sax yahay. yaa soo hubiyey oo warbixintan keenay. balse markii madaxweynaha loo sheegay in ninkii baaritaanka galay ee warbixinta soo gudbiyey uu yahay Maxamed Nasiim si buuxda oo kalsooni ku jirta ayuu u rumaystay warkii. arrintii iyo meelaha ay taabanaysay awgeed Saadaad waxa uu amar ku bixiyey in tallaabo loola socodsiiyo wax walba oo arrinta Cali ku saabsan si qarsoodi buuxdana loo xayndaabo. markaasi kadib ayuu amar ku bixiyey in la soo qabto Cali. waxaa amar lagu siiyey sirdoonkii Masaarida ee Holland joogay inay kor kala socdaan Cali oo uusan dareemin in la ilaalinayo si uusan magangelyo ugu raadsan safaaradda Israa'iil ama uusan isugu dhiibin dowladda Holland oo iyaduna diidi karta inay Masar u soo gudbiso ninkaasi. Cali waxa uu tigid ka jartay shirkadaha duulimaadka. sargaal sirdoonka Masaarida ahna waxa isna amar lagu siiyey inuu diyaarad la soo raaco Cali si markii uu cagaha soo dhigo dalka Masar durbadiiba gacanta loogu dhigo. 22 Maarso 1979 ayaa dayuuradii cagaha ka soo qaaday magaalada Amsterdam ee dalkaasi Holland iyada oo uu saaran yahay sarkaal sirdoonka Masaarida ka tirsan kaasi oo hubiyey in magaca Cali Cadfi uu ku jiro dadka diyaaradda saaran. diyaaradii markii ay soo caga dhigatay magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar sarkaalkii waxa uu hoos istaagay salaankii ama baalkii diyaaradda isaga oo sugaya in Cali uu ka soo dago diyaaradda. balse kadiskii dhacay wuxuu ahaa in Caliba la waayay. xagee ayuu aaday? ma uumi buu noqday mise shaydaan ayaaba la duulay? sarkaalkii waxa uu u tagay raggii ay isla shaqaynayeen oo iyaguna dariishada xafiis ku yaalay airportka ka daawanayay diyaaradda dadka ka soo degayay. waxa ayna u sheegeen in Cali uusan diyaaradda ka soo degin. durbadiiba waxa warkii la gaarsiiyey Maxamed Nasiim oo isaga xoogaa kadib habkiisii gaar ahaaneed uu ogaaday in Cali uu gurigiisa joogo uuna diyaarad 2 maalmood ka hor ku yimaaday wadanka Masar. habkaasna waxay ahayd hab Cali sameeyo oo raacda reeb ah. waxa ayna ka fursan weyday in la keeno qorshe lagu qabto Cali. subaxii ku xigay Cali waxa uu telefoon ka helay wariye u shaqeeya wargeyska Aakhir al-Saac oo ku yiri waxa aan rabaa inaan wareysi dheer kula yeesho oo ku saabsan horumarka laga gaaray daweynta dabiiciga ah. wuxuuna Cali ballan u qabtay wariyihii 9 ama 3 saac ee fiidnimo. intii uusan qadka ka bixin wariyihii waxa uu Cali ka codsaday inuu meel ku xiro eygiisa oo ahaa mid uu wariyaha aad uga cabsado.
cali isagoo qoslaya ayaa waxa uu ballan qaaday wariyihii in arrinkaasi uu ka xallin doono balse ma oga in qorshahaasi ay ka dambeeyaan sirdoonka masaarida 8 maarso 1979 xaafadda Zamalek waxaa lagu xindaabay ilaalin heer sare ah iyada oo aanan dadka dareemaynin waayo xaafadda waxa ay ahayd xaafad sare waxaana u badnaa safaarada waxaa sidoo kale deganaa diblomaasiyiin qalaad arrinta loo socdo oo aad u ahayd mid xasaasi ah ayaa loo baahnaa in wax walba la iska fisho sarta LM4 ee jidka Bahjad Cali ee xaafadda Zamalek aad ayuu u deganaa meel u dhow waxaa istaagay baabuur yar oo madow oo ay ku dhagan tahay aqoonsiga baabuurta dadweynaha ama PSV-ga waxaana ka soo degay rag qaba dhar iska caadi ah oo wax si kala ah aysan ka muuqan calina xilligaasi waxa uu sugayay wariyihii ay ballanta lahaayeen raggii sirdoonka ahaa waxa ay soo gaareen qaybtii uu cali ka deganaa dhismaha uu isagu leeyahay oo ku fadhiya dabaq dhan waxaa ilinkii ka furtay gabadhii shaqaalaha ahayd oo u soo waday dhinacii fadhiga balse waxa ay ku baraarugtay gaashaanle Nasiim oo durbadiiba horay u galay qolkii wax akhriska oo uu cali ku jiray kuna fadhiyay kursi uu ku sugayay wariyihii uu filayay in uu wareysiga ka qaado inkasto oo uu aad ula yaabay sida kadiska ah ee loogu yimid haddana cali wuxuu isku dayay inuu iska dhigo nin degan Nasiimna waxa uu raggiisii ku amray in ay guriga isku ballaashaan Nasiim waxa uu jeebka ka soo baxshay xaashi maxkamad ka socotay oo amraysay in cali la qabto gurigiisana la baaro iyada oo lagu eedeynayo in dawlad qalaad uu wax la wado halisna ku yahay nabadgelyada dalka Masar waana uu tusiyay cali xaashadii cali waxa uu iska dhigay nin ay yaab iyo amaka ku noqotay waxa uu maqlay waxa uuna bilaabay hadallo handadaad ah oo uga digayo Nasiim cirab xumida ay u keeni karto waxa uu wado balse raggii waxa ay sii wateen hawshoodii waxaana markaasi soo galay Shariif wiilkii cali oo jaamacadda qaybta injineeriyadda ka dhigta waa uuna la yaabay xaalka aabihiis uu ku sugan yahay af Jarmal ayay ku sheekaysteen Shariif iyo aabihiis waxa uuna wiilkii ku yiri aabihiis waxaan wacayaa Jamaal wiilkii Saadaad si uu madaxweynaha ugu sheego waxa meesha ka socda balse raggii sirdoonka ahaa waxa ku jiray nin aad u yaqaanay afka Jarmalka intii kalena u sheegay waxa uu wiilka yiri iyo falka uu rabo inuu sameeyo wuxuuna ka codsaday ninkii ka socday qaybta nabad sugidda intaasi aysan dhicin oo wiilka uusan wicin Saadaad si hawsha aysan uga kala go'in gaashaanle Nasiim ayaa markaa yiri Dr. Cali Cadafi waxa aad ku eedeysan tahay in aad basaas u tahay dawlad qalaad halkaana waxaan u nimid inaan ku qabanno taasna waa ay dhacaysaa ma la qaban doonaa maxaase ku xigi doona barnaamijkeena dambe ee qaybta shanaad ayaynu ku falanqayn doonaa daawade tan iyo intaynu ku kulmayno barnaamijkeena kan xiga waxaan inkaga tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh